haddaba qodobada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doono oo ah barnaamijkeena labaad waxaa ka mid noqon doona Iiraan iyo Mareykanka oo goordhow mar kale nagta iska saaray waa celcelis xalayna waad ogeydeen maantana waa la isku qaadqaaday tolo xabad joojintii miyaa qarka u saaran inay jabto maxaa keenay maanta inay mar kale haddana isgaraacaan tafaasiisha wararkaas ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu haynaa Mareykanka weli waxay sugayaan jawaabta Iiraan ay ka bixinayso hindisaha wada hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka oo sheegay in maanta Iiraan laga sugayo inay soo gudbiso qorshaheeda halka Iiraan ay sheegtay in weli arinta ay ka baaraan dagayso warka xiisaha leh waxaan idinkugu soo gudbinayaa maanta barnaamijka Masar oo ciidamo geysay iyo diyaarado dagaal dalka Imaaraadka Carabta Masar miyay ku biirtay dagaalka looga soo horjeedo Iiraan haddaba wararkaas ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa inta aan ku jirnana wixii wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa waxaanu ku bilaabaynaa goordhow waxaa haddana joogsaday dagaal dhagaha la iska garaacay oo in yar socday kaasoo ka dhacay marin biyoodka Hormuz leedahay waa celcelis nimankan Iiraaniyiinta iyo Mareykanka xalayna midda ogeydeenaa la isku dhigay haddana hoosaa la isugu dhigay gantaalo iyo sawaariiq iyo wax walba haddaba tii xalay waa ka sheekeennay barnaamijkaygii koobaad ayaanu si weyn ugu faahfaahinay tan haddeer dhacday maxay ku bilaabatay yaa gardaran yaa isweydiinaa meesha nin walba wuxuu leeyahay kan kale asaa waxa bilaabay anna markaasaan ka jawaabay uu leeyahay haddaba marka wararka xog ogaalnimada ah ee la helayo oo ay warbaahintu tabinayso waxay leeyihiin laba markab oo kuwa shidaalka qaada ah oo Iiraan leedahay oo shidaal soo geeyay meeshii ay aadeen shidaalkii inta geeyay soo laabtay oo dekadahoodii u socda ayay Mareykanku waxay yiraahdeen joogsada maxaa joogsanayna gurigeenaba u soconaay joogsada maxay xayiraada saara xayiraada meesha rabtiin la aadeen waxaan joogsadeena bale Mareykankii indhiisa shantaa la soo agmaray markaasaa Mareykanku waxay yiraahdeen waxaynu ku ridnay labada markab laba gantaala ku ridnay waliba meelaha halisa maana uga dhufare waa dhaawacneen waa ugu talagalnay jugta ka galin maadaama cunaqabatayntii ay jibiyeen labadii markab ma lagu riday gantaalihii way hadleen sheekadaasaa dhacday waaye nimankaana waxooda waaba cabbaysan yihiin Iiraaniyiinta ciidankooda ilaalada kacaanka waxooda waaba diyaarsan yihiin gantaalihii iyo waliba maxaato droniskii hal maray soo haadeen maraakiibtii weerartay kuwii Iiraan intii aysan kala wareegin aan nagta laga saaray iyagana waa isqabsatay xabadii ma ujeedaa kuwa kaloo kuwaas waardiye ka ahaa oo Mareykanku leeyahay iyo maraakiibtii doomihii yaryaraa ee kaneecada badda aanu bixiyay ee Iiraan ayaa jugta iska geliyeen gantaalka wiifaya waxa socda rasaasta dhacaysa labadii markab ee Iiraan iyagoo dhaawacanay dhanka dekadoodii aadeen markii loo soo gurbaday kuwii Ameerikaanka ee wax weerarayna dibay isaga laabteen laakiin meesha maxaa yaala mushkilad weyn meesha marka ka jirta leeyahay mushkiladaas marka waxa waaye sheeko cajiiba waa fiiriye 1600 oo markaba ku go'doonsan meesha rasaas haddii la isku rido iyo madfac iyo hoos la isugu dhigo derbi lagu dhunto ma badda ku yaala markabkaana ka soo dusay ka kale ka dhaxbaxaysa maraakiibtii oo dhan maartay dhibaato ku dhacda leeyahay marka xaalku aad uu marka halis u yahay haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay laga qoray telefishinka Al Jazeera goordhow wuxuu leeyahay ciidamada Mareykanka iyaga ayaa marka hore bilaabay oo duqeeyay laba markab oo kuwa shidaalka qaada oo faaruq ahaa kuwaas oo ku soo laabanayay Iiraan
shabakada la yiraahdo Fox News ee laga leeyahay dalka Mareykanka oo soo xiganaysa mas'uuliyiin Mareykan ah ayaa waxay sheegeen in maanta ay Mareykanku iyagu weerar ku qaadeen laba markab oo faaruq taagayay oo ka soo laabtay shidaal ay geeyeen kuna socday dekedaha Iiraan oo Iiraan ay lahayd kadib markii la sheegay inay jabiyeen cunaqabatayntii Mareykanka oo jeeda Mareykankii isaga qiranaya wuxuu leeyahay annaga jugta bilawn labadaas markab waxay jabiyeen xayiraadii dekada waxay aadeen Iiraan okay Iiraan marka iyadu sheekadan maxay ka tiri haddaba Al Jazeera waxay dhanka kale leedahay wakaalada wararka ee Tasniim waxay sheegtay in rasaas culus la isdhaafsaday oo waliba xadidan Iiraan iyo cadawga waxaana ay rasaasaas ka dhacday marinbiyoodka Hormuz haddaba waxay leeyihiin rasaas kooban oo aad u culus la isdhaafsaday cadawga iyo Iiraan oo marinka Hormuz ka dhacday waxaana la sheegay inay rasaastaas socotay 2 saacadood ku dhawaad in dagaalkaas uu ka socday marinbiyoodka Hormuz موجودة كدواد لبا ساعدود ميلهاس وأديك أنت دبك الإسكيلية وساعدي ميلهاس أنت كلنا حوجا رعد الربي وحبات جري دق واجوجنا عمل وحس لبا ساعدود كدواد ماشي جوكتو كسعود مركا شيكدي ما أنت دعدي مركا يدنا سيداسي ودعدا لليهاي tii xalayna de waatan ka sheekeena wixii dhacay barnaamijkii koobaad dadka aan daawan iyaguna halkaas ay ka fiirsan doonaan waayahay waxa noo soo socota sheeko cajiib oo ku saabsan Masar oo ciidan iyo diyaarado dagaal geysay Imaaraadka difaacayna ilay waxaan ka difaacaynaa Iiraan sheekadaas waa sheeko aad xasaasi ah laakiin waxaan ka hormarinaynaa wada hadalladii ayaa hadda waxa la leeyahay waxa laga warsugayaa Iiraan macnaha Mareykankii waxay sugayaan Iiraan inay dhahaan confirm okay waa heshiiska waa la saxiixayaa Iiraan marka la sugayaa marka ninka wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rubio la leeyahay ayaa wuxuu yiri maanta sugaynaa Iiraan inay noo keento arinta oo macnaha waxa aan ka sugayno heshiiskan inay nala qaadatay iyo in kale maalmahan oo dhan Iiraan la sugay Iiraan waxa ma ogaaday wali daraasada ku haynaa adika su'aal daarabtaan hada degdegsantiin dagaal ma u socotina kaalay waa nagta iska saarnaa hadii kale suga baasho daraasad weyn oo baantaay waxa u baantaa khubaro u baantaay ayatullah laftirkiisa fakarkiisa loo baahan marka nimankii marka saas lagu jiraa marka dhanka kale marka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan waxay leedahay annagu arikan waa ka fiirsanayna wali laakiin waa soo gudbin doonaa marka sheekadii wada hadalka iyaduna wali waa nusan tahay wali Iiraan dhankeeda wax laga sugayaa marka halkaas sheekadu maraysa haddaba warka xiisaale ee soo baxay waxa leeyahay waxay ogaatay warbaahinta Carabtu in Masar ay geesay ciidan hub gantaalaha difaaca iyo diyaarado dagaal waliba Imaaraadka geesay dadkii masaarida marka waxay leeyihiin sharciga ciidankeena uu ku tagay Imaaraadka maxaa adduunka marka ciidan qaadaysid hub qaadaysid waa difaaca leedahay waa inay wax idinka dhaxeeyaan gaashaanbuur la yiraahdo NATO oo kale ma ku wadi jirtaan ma iskaashi khaliijka iyo Masar ah oo in la isdifaaco ah oo official miyaa qoran dadyowgooda og yihiin dadkooda og yihiin may marka ciidanka loo geeyay waxa la yiri ninka Siisi ahaa ayaa Imaaraadku afgarteen macnaha waxoogaa wixii boorsadiisa loo tuuray ciidankan masaaridan meesha iska keen hadda marka waxa waay marka hore qarsoodii ahayd hadda bug ay soo tirbaash warbaahintii oo dhan ka hadlaysa maanta Siisi meeshuu tagay ciidan masaariya jooga diyaaradaha jooga Iiraan marka maxay tiri anaga Masaray adiga dagaalku gulama jirno kowde laakiin haddii aan meesha imaatid jugta laga gelnaa Masar ciidan ay keeneen iyo diyaaraday Masar keentay maxay Iiraan ka qaadeen macalinka weyna wax kasta inta geeyay
oo hub adduunka ugu qaalisanaa wax laga qaadi waayo masar maxay marka meesha ka cunaysaa imaaraadkana lacag looga qaadanaa bas masaariya kula joogtay masar xoogaa maarat waa saas waa ile marka sheekadii waaliya noqotay hadda masar waxay iyaduna soo gashay liistiga iiraan cadowgeeda soo galaysaa imaaraadka foxaa saarnaa wuxuu soo geliyey masar uu soo dhex geliyey sheekadii masar maxay u nasanay horta qaliijkaba jugtaa laga gelinayay masar laftirkeeda gantaalka marka iiraan magaara masar iiraan gantaalkeeda hadduusan gaarin xataa xuutiga dhagaha ka garaaci kara badda cas meesha suudaan dusheeda iyo xuutigu gantaalihi ay soo ridaan israa'iilay garaacaan xataa dronis iyo gantaala u socday dagaaladii hore oo lagu duqayn lahaa israa'iil ayaa waxay ku dhici jireen dhul ay leedahay masaarida marka maxaa leeyahay aagaas horta waa xuutiya nagta ka saari kara masar dhanka kalena iiraan laftirkeeda garaaci karta iiraan israa'iilba way garaacaysaa gaza meel ku dhoway garaacaysa iiraan gaza iyo masarna deris waayo marka meel aysan gantaaleedu gaari karin gobolka bariga dhexe iiraan ma jirtaa leh marka sheekadanu waxay noqotay sheeko waali ah marka haddaan hadda bahashan lugaha la qabanin meel kastee ku fidaysa waa cudurka kansarka oo kale uu yidhi nin la wareysanayo dagaalkan iiraan wuxuu yidhi waa kansar oo kale meesha uu hadda jooga haddaan lala jarin oo lagu joojinin jirkoo dhan oo ku faafa uu yidhi gobolka dhan uu ku faafi doonaa yidhi dagaalkan turkiga waa gaari doonaa masar uu gaari doonaa waa la iskala tegi doonaa wadamadan yurub ee kusoo dhow bariga dhexe giriiga iyo dhulkanoo gaari doonaa qubrus iyo waxaanoo dhan waa gaari doonaa marka sheekadii hadda tabtiga ku socotaa haddaba marka aan idintusoo wararkii ugu dambeeyey wargeyska la yidhaahdo alqudus ayaa wuxuu leeyahay ciidamo masaari ah ayaa jooga imaaraadka laakiin su-aasha la isweydiinayaa waxay tahay sharciyadda loogu diray ciidankan masar loogu diray haddaba warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay wargeyska alqudus wuxuu helay xogo muhiima oo laga helay qaahira kuwaasoo sheegaya in booqashadii madaxweynaha masaarida cabdifataax asiisi uu ku tegay abudabay ay markaasi la xiriirtay ciidamo masaari ah oo la geeyey halkaas kuna sugan saldhig military oo imaaraadku uu leeyahay waxaana la sheegay wasaaradda difaaca ee imaaraadku inay markaa halkaa wada tageen sheekh maxamed bin zaayid madaxweynaha imaaraadka iyo madaxweynaha masar siisi booqasho inay ugu tageen ciidankaas oo halkaa ku haysta hub casriya iyo diyaarado dagaal ma ujeedaa marka sheekadii bariga dhexe allow sahle marisaa wararkaas ayaa iyaguna soo kordhay haddaba qadar xayeysiisa kadib wixii akhbaaraada ee soo dhacay inta maanta waa maalinimo jimca qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeenu marayna alaaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaa wixii akhbaaraada ee soo dhacay inta aanu barnaamijka ku jirnay haddaba goordhow waxaa taqriir ama warbixin soo saartay wasaaradda caafimaadka ee lubnaan waxay tiri 2 maarso markii dagaalka uu bilowday ilaa hadda inta qof ay shahiiday ee markaa reer lubnaan ah oo israa'iil weeraradeeda ku dhintay xisaabtoodii maanta inta ay marayso haddaba waxaa la sheegay 2759 muwaadiniinta lubnaana inay shahiideen oo ay duqaymahaas iyo wixii ay samaysay israa'iil ay ku dhinteen kuma jirto wixii ka horreeyay iyo xasan nasrullah markii la dilay iyo waxaas kuma jiraan waa